السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتا قيمها إيقاياها لميل كستو آد إيقالا سو حريريسان oo aad igala socotaan barnaamijyadeeda waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan ama xagayga waa maalin salaanta islaamkaan idinku salaamaya inaad wanaagsan tihiin aan rajaynayaa oo dhammaantiin farxad ku nooshihiin maalmahan maana soo gelin inta badan waa la suwaayay iska mashquulka dunida oo iska badan darteed maantana ugumaana talagelin xilli badan inaan ku jiro laakiin bal waxaan isri waxyaabaha hadda soomaalida dhexdeeda ka jira hindaay bal aad cabiro adna bal waxaad ka oran lahayd waxoogaa yar ka dhig haddeer waxaad moodaa in wanaagii la laalayo oo xumaantii soo kormarayso oo diintii laga fogaanayo oo dhaqankii laga fogaanayo oo soomaalinimadii laga fogaanayo axsaankii iyo wanaagii laga fogaanayo oo intaa un la raadinayo xumaantii inay socod sara marto weliba hadda ayaantan dambe aad moodo in dumarkii lagu fiyus doonanayo oo muxuu lagu irsaaqa doonanayo oo 24 saacaad bakii dumarka cayn yaqaana oo wax oran yaqaano muxuu la bomboonayo dhakada sare la geynayo xumaanta in sare la geynayo samihina la reebayo ayaan arkaa marka maadaama aan taas arkay wixii aan ka oran lahaa bal xagayga ayaan ugu talagalay inaan bal wax yar ka iraahdo inkastoona waqti badan idin hayn raalli ahaada meerto weeye dunidii mucjisaadka ka jira adduunka maalinba waacayn muruqa kuwii lahaan jiray muftaaxa u ahaa dunida mansab sare u tartami jiray maanta marastay ka laalaadaan maqsinaday jabjabshaan ama guryahay jabjabshaanaan ka wadaa maqsinaday jabjabshaan muran iyo aflagaaday manfac ku doontaan maalin ma shaqaystaan midba midkuu ka aflagaada badanyuu malaayiin u sacabatumo dheeryay mugdi bay ku socotaa soomaaliya masaajida isuguma yeeraano mud iyo qaawaniday magac sare ku yeeshaan masaajida isuguma yeeraano mud iyo qaawaniday magac sare ku yeeshaan midka ugu qaawani badan baa ugu caansan Soomaali meeshay quraan ka maqlaan waaway ka dareeraan midkii sheekh isku sheegaa muxaadaradiisuba dumarku ma dhaafto maalin iyo leyl masaajidu dumarka unbay ka hadlaan maalin iyo leyl masaajidu dumarka unbay ka hadlaan marna dahabkay ka furtaanoo diintay u been daliilshadaan malcaamaday ku dhistaanna mid kaley ku dagaanoo maalqabeen weyn iskaga dhigaan malaayiin weeye maskaxda ka saboola mowlaheen ha u miciino mugdiga ha ka saaro Soomaalidu malaayiin weeyaan maskaxda ka saboole mowlahee ha u miciino mugdiga ha ka saaro intaasaan kusoo koobayaa iyadoo aan ugu talagelin in badan wada haddana waxaan filayaa intaa yartaa inay wax badan ifisay oo marxaladaha hadda la marayo oo ay Soomaalidu marayso ay runtii taa tahay masjidkii fadhiyo dumar buu ka hadlayaa dumar buu leeyahay way tomatay intay ka baxday intay ka dhacday intay ragga keenay inay dumarka tuntaan oo ay duloobaan okay hadii mid la furanayo guri laga burburinayo midda guriga laga burburinayo mid kale ayaa biil laga qaadayaa markay midan ay midiyaha timaadana midkan sonay ku tahay ma doonayo inay midii kale oo lacagta ka qaadayay aragto marka muxuu sameynayaa waad ka shiftay gurigan ka burburinaya adna ay ku dhamaatay noloshaada aanba nolosheeda dhulkaad gelisay leen ka shiftay inaan been kugu qabay marka hadda sheekada heerkaas ay maraysaa in dumarkii Afrika joogay la dago iyo meelaha joogay la dago dumar kalena la dago iyagana la yiraahdo biilkii ii soo dir Afrika intaad iga qaadanayso oo aad isoo kaxaysanayso aan qurbaha kuugu imanayo isoo biil odaygaadi baan ahay in la yiraahdo oo la dago lacagtii laga gurto mid kale oo Afrika joogtana saas oo kale iyadna loo qiyaanayo la yiraahdo in familigayga isoo biilo intaan kugu qabayaa odaygaadi aan ahay macaan iyo dhanaan iyo wax baan ku siinayaa dumarka in la isku kordilo midna lagu socdo oo guriga laga jijibsho midna laga guro lacagto iyadna dhigeedii dhacankeedii meesha lagu cuno oo gabar kale lagu dago bari marka la soo dhoofana iyadna waa lagu bilaabaya sidii oo kale ileen guri burburiye meeshu yimaado wuu burburinayaa Soomaa marka walaalayaal wanaaga hala isfaro xumahana hala reebo anu intaasan taaganahay inta wanaaga dadka inay faraan jecel
ha ahaadeen abwaan, ha ahaadeen fanaaniin, ha ahaadeen shuyuuq nadiif ah. shuyuuqdii hadda iyaga xataa qaarkii nadiifka ahaa way yaraadeen. shuyuuq waxaa soo baxday iyagana muxuu ahaa interested ah oo beentaasi intay lacagta ku gurtaan wax aanan run ahayn intay dadka usoo malmaleegaan lacagta sidii muxuu ah yiraahdaan masjid aan dhisayaa, malcaamadaan dhisayaa, kanaan dhisayaa, diinta islaamka waxa lagu darsado. markay dhaqaalihii qaataanna gabar kale oo miskiina ku dagaya oo 20 jir oo Afrika joogta ama muxuu ah Asia joogta, kuwoodii kalena ka tegaya oo intaasaa u meereysanayeen. dumarkii dahabka ka furanaya danahooda gaarka ana dahabka uga furtay oo bari meeshay dhistaan iyaga dhex fariisanaya danahooda ku qabsanaya. marka waxaan leeyahay Soomaaliyay meelaad u socotaan, wallaahi meelaad u socotaan anu ma garanayo. intaan kuma soo koobi karo. waxaan idin dhihi lahaa mar iyo laba iyo saddex hadba wixii jiro wax waan kasoo dhihi doonaa. waa anoo abwaanad Hinde Shaxshaxley ama Hinde Ibraahim Nuur, qofba siduu ii yaqaano. inta magacayga iyo muuqayga taqaano kal iyo laabaan u salaamaya. intaan ay aqoonna kolley iyaga ay baran doono. salaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.